waxaan ahay xamdi maxamed cabdi xaaskii cabdikariin sheekh muuse waxaan ka hadlayaa arrinta baarlamaanka Soomaaliyeed ay abaabulayaan ay u kala jaban yihiin ee ummadda Soomaaliyeed ay beenta iyo propagandada loo sheegayo baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa ummad Soomaaliyeed ay xil u qaadeen ummad Soomaaliyeed ay magac u matalaan dawladdan oo Soomaali meel kasta dariya dibadba waxay higsanaysaa dawladda federaalka higsanaysaa haddayna cadaalad samaynin dee ayagana cadaalad darro un baa ku dhacaysa walaal xildhibaanada walaal waxaan leeyahay ummad Soomaaliyeed xil bay u hayaan xaq bay u qaadeen madaxweynaha arrin aan fareen baa ayaga faran oo ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada ay ku hiranayaan waxaan kaloo leeyahay xildhibaanada iyo waxaan ka codsanayaa wasiirada inayna farmaajo iyo khayr xil Soomaaliyeed dambe inayna haynin taasaan ka codsanayaa haddii kale waa cadow idinku maqan farmaajo iyo khayr hal bay idin dhibayaan habeen madow bayna ka wada gadanayaan hadda gaalkeedan dhaha soo dhiiya Soomaaliya oo dhan saqiir iyo kibir waan la hadlayaa waxaana leeyahay haddiina arrinta cabdikariin sheekh muuse lagu dhigay aan laga hadlin oon laga dhiidhiin inay inagu wada dhacaysaa wallaahi oon wariyaan la deynaynin madaxweynaan la deynaynin seer wasaaraan la deynaynin xildhibaan baa la deynaynin eeraboodka aadan caddaan ka wada jeebaysannahay waxa inoo wada jeebaysanna waxa inoo wada yaalana muwaadilnimo weeyaan cabdikariin muwaadil buu ahaa muwaadilnimadkii baa lagu maagay tuu khiyaamo samayso oo tiri Soomaali baan nahay baa cabdikariin dhiibtay marsiyo kale waayeen waa Itoobiyaan bay dhaheen isma laha sac wuxuu ku amsaana waa maa baa wuxuu ku hadlaana waa maa cabdikariin cadow Itoobiya ahaa iyo Itoobiyaan buu ahaa isma laha walaal anaga aad baa dhibaato badan u dareemayna ilaa habeenka cabdikariin la dhibay ilaa saacadan kula hadlayo xaqiiqdii haddaan kuu sheego dhibka ay gaaray ma yara maalba marka dambayso waa ummadda Soomaaliyeed ay dhibaatada rag Soomaali sheeganaya ay noo geysteen haddana ay ku sii indhacadeen cabdikariin inuu Itoobiyaan ahaa eragaas aniga cabdikariin dhibitaankiisa iyo dhimashadiisa Ilaahay ba ku shaqo laakiin eragaas ay ugu darnaa aad iyo kula ilnay dhamaan xasalama Soomaalida meel walba joogto marka maanta meeshan waxaan hadlayaa aabay marka la xiray wuxuu kala kulmay xiritaankii aabay waxa qabtay Soomaaliyan dhiibtay Soomaaliya jirdil u geysatay marka Soomaalida waxaan ka codsanayaa intay baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dib noo geystay waxaan ka codsanaynaa intay nala garab galaan sida aabeen noo soo badbaadin lahaayeen